السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوديال halkani waa dhanbalka dunida ku soo dhawaada barnaamijkan falanqaynta wararka galabnimo maanta isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 7 bisha Oktoobar sanadka 2024 qodobada xiisaha leh barnaamijkan galabta in kugu soo gudbidana waxa ka mid noqonaya shirka madasha wada tashiga qaran oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho guud ahaan fashilmay Axmed Madoobe dib ugu laabtay magaalada Kismaayo caasimada ku beelgaarka ee Jubbaland qayladhaanta mucaaradka iyo filla Soomaaliya oo imika ku jahwareersan hubinta la'aanta siyaasadeed wadanku u galay falanqayn iyo warbixin ayaa daawadayaal kaga haynaa qodobada kale barnaamijkan galabtaan ku soo qaadan doona waxa qayb ka noqon doona kambaniga Medtech oo ah kambani laga leeyahay dalka Turkiga iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug oo maanta magaalada Muqdisho ku kala saaciiday heshiis lagu dhisayo dekada magaalada Hobyo falanqayn ayaan daawadanageedana kaga hadlayna qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan galabta waxa qayb ka noqon doona colaadii maalmaha u dambeysay ka socday degmada Landheere ee gobolka Galgaduud oo iminka xalkeeda loo fadhiyo odayaal dhaqan oo halkaas ku baxay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan daawadayana halkan kugu soo gudbin doona qodobada wararka caalamka ee galabta ayna haynana waxa kamid ah hal sanad ka soo wareegtay kadib markii 7 bisha Oktoobar ee sanadka hore ay maanta kale ay weerareen ururka Xamaas ay ku ekeeyeen caasimadaha waaweyn ee dalka Israa'iil qodobadaas iyo waxaynu ku soo kornay Soomaaliya caalamka ku saabsan ee daawadayna halkan ku soo gudbin doona soo saarista tibinta wararka daayir Abshir Xasan fadlan hadda ku cusubta YouTube-kana dhanbalka dunida subscribe saar page-keena YouTube-ka lidda mariyo sidoo kale baraheena bulshada u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas oo faahfaahsan waagaag daawadayaal aan ku bilaabana barnaamijkan falanqaynta wararka galabnimo ee shirka madasha wada tashiga qaran oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho ayaa minka la soo warinaya inuu guud ahaan fashilmay isla markaana wax natiijo laga soo saarin shirkan oo inta badan ay isku yimaadeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxda ugu sarreeyay dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa maalmihii la soo dhaafay lagu jeexjeexay arrimo fara badan iyadoo inta badan qodobada la soo qaaday la isku fahmi waayay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo caasimada dawlad goboleedka Jubbaland asagoo markaasi halkaasi ka dhaqaajiyay waxa kadib markii ay qodobbo fara badan isla soo qaadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay isla fahmi waayeen waxaana kamid ah qodobada la isla fahmay Axmed Madoobe oo hordhigay Xasan Sheekh Maxamuud in Jubbaland ay qabsato doorashooyin ay u madax banaantahay isla markaana ay suurtagal ahayn doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo Jubbaland xagga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu san taasi doonin isla markaana uu ka diiday oo uu sheegay in markaasi dalka Soomaaliya guud ahaanba haday tahay heer maamul goboleed iyo heer federaal intaba lagu dooranayo markaasi doorashooyin qof iyo cod isla markaana doorashooyin dadban aan dib loogu laabay doonin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qodobkaasi aad ugu dhaganaa Axmed Madoobe ayaa arintaasi ka diiday waxaana taasi qasabtay inuu maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo caasimada gobolka ee Jubbaland labana oga waxa dambe oo ka soo bixi doona iyadoo hadda imika la sheegay in guud ahaanba madaxda halkaasi isugu timid ay ku kala tageen wax natiijo ah oo yaraatana aysan ka soo bixin shirka madasha wada tashiga qaran oo hakii ugu waqtiga dheeraatan iyo markii dib loo doorashay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qodobada la isla fahmay waa ilaa xilligan madaxda dawladda ugu sareysay dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa kamid ah qodobka doorashooyinka iyo sidoo kale iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda ay miiska soo saareen in madaxda maamul goboleedyada min hal sano loogu daro sidaas darteedna ay kala shaqeeyeen in dalka Soomaaliya ay ka qabsato doorasho qof iyo cod iyadoo inta badan madaxweynayaasha maamul goboleedyada arintaas ay ka diideen waxaana taasina caqabad ku noqon doontaa dhamaystirka dastuurka iminka baarlamaanka uu horyaalo xafladan ay ku kala saxanayeen dawlad goboleedka Galmudug iyo kambaniga Medtech waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha hore ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Raable iyo sidoo kale qaar ka mid ah musharaxiinta dawlad goboleedka Galmudug iyo marti sharaf kale iyo mas'uuliyiinta kambaniga ayaa sidoo kale ka soo qayb galay shirkani waxaanu kambanigaani uu noqonay kambaniga ugu horeeyay ee dekada magaalada Hobyo ka dhisa iyadoo kambanigan ay si weyn u soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan dawlad goboleedka Galmudug oo si weyn uga dharsugaya dhismaha dekada Hobyo oo saade kambaniga ayaa la filayaa inuu noqon doono kambaniga ugu horeeyay ee dekada magaalada Hobyo maalgeliya iyadana maalgelinta iyo sidoo kale dhismaha dekada Hobyo ay ka qayb qaadan doonaan ganacsiyaal reer Galmudug وهاجا مالمي ugu dambeeyay waxa colaad aad u baahan ay ka jirtay isla markaana dagaal culus ay ku dhaxmareen deegaanka Landheere gobolka Galgaduud laba beelood walaalo halkaasi wada degaa waxaana dagaaladoodaas ka dhashay qasaare isku jira dhimasho dhaawac ila xilligan ma jirto wax xal laga gaaray hasaatee waxa jira dadaalada nabadeed ay wadaan odayaasha dhaqanka gaar ahaan odayaal ka baxay magaalada Dhuusamareeb caasimada dawladda Galmudug iyo wax garadka reer Galmudug meel kasta ay joogan ayaa baaqyo kala duwan oo soo diray labadan beelood ayagoo markaasi ugu baaqay inay joojiyaan dagaalkan ku soo laabtay deegaanka Landheere gobolka Galgaduud isla markaana nabadda ay qaataan odayaasha dhaqanka ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay oo markaas labadaas beelood ugu kala lagu heshiisinayo
waxaa wararka naga soo gaaraya halkaas ay sheegayaan in markan xaaladdu meel fiican ay marayso isla markaana intooda badan odayaasha dhaqanka labada beelood oo halkaas ku dagaalamaya isku soo dhawaadeen isla markaana la filayo in saacadaha soo dhacda ay ka soo baxaan natiijooyin sidoo kale warmartiyeed ay soo saaraan labada dhinac ee maalmahanba halkaas ku dagaalamayay ugu dambeyntiina haddana wararka caalamka maanta waa 7 bisha Oktoobar waxaa hal sano laga joogaa markii ururka Xamaas ay weerareen aan loo kala harin isla markaana cirkii ciidda ay ku qaadeen magaalooyinka dalka Israa'iil oo jabka 7 Oktoobar ee sanadka hore ka soo gaaray Xamaas oo ahaa kii ugu weynaa ee sanooyinka la soo dhaafay soo gaaray ayaa ururka Xamaas waxay ugu magac dareen duufaanul aqsa waxaana ilaa yoomin hada halkaas ka socday duqeymo waaweyn oo ururka Xamaas ay markaas u geysanayaan Israa'iil iyo sidoo kale magaalooyin kala duwan ay degto Israa'iil oo jabkaana ah kii ugu weyn oo markaas soo gaaray sanooyinka ugu dambeeyay ayaa ilaa xilligan ay ka soo kabar lahayd iyadoo caalami islaamina arintaas aysan wali ka hadlin isla markaana aysan wax nusreena iyo si gargaar aysan u sameeynin ururka Xamaas oo ilaa yoomin hada halkaas dagaal ba'an kula jira Israa'iil iyaduna Israa'iil taas ay kaga jawaabtay duqeymo ba'an oo ay ku qaaday magaalada Gaza ee caasimadda dalka Falastiin halkaas ay ku leystay boqolaal iyo sidoo kale malaayiin dad shacab oo reer Falastiin ilaa yoomin hada halkaas waxay ka wada duqeymo aad u waaweyn iyaduna iminkan ay ku dartay dalka Lebanon ay weerar kale iyaduna ku qaaday iyaduna Iiraan arintaasina ay ka falcelisay oo markaas duqeymo kale iyaduna ay ugu jawaabtay ilaa hadda xaalka bariga dhexe waa adag yahay markii ka soo dambeysana cirka ayuu isku sii shareeraya Xamaas ayaa dhinaca ka duqeynaysa Israa'iil sidoo kale Lebanon dhinaca ay ka soo tuurayaan gantaalo ururka Xiitiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalamaya iyaduna dhinankooda ay ka tuurayaan waxay beegsanayaan maraakiibta reer galbeedka ee maraya badda cas sidoo kale waxa ay doonayaan markaas inay gantaalo ku weeraraan magaalada Tel Aviv caasimadda dalka Israa'iil xaalka bariga dhexe ayaa marba markii ka dambeysay xaaladdiisa cirka isku sii shareeraysa guud ahaan iyo gabi ahaan daawadayna wanaagga intaas barnaamijkeena falanqaynta wararka galabnimo soo saarista tabinta ku xaaniga Daahir Abshir Xasan fadlan waxa ku xusuusinayaa daawada haddii ku cusubta YouTube-kana dhambalka dunida subscribe saar sidoo kale page-kana Facebook Leaderman iyo sidoo kale baraheena bulshada sida X iyo sidoo kale Instagram iyo barteena TikTok tan iyo maalintii bariyaanta ku kulmi doona akhyaaray barnaamij aynkan kale waxaan kaga tagnaa salaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh